السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا إليس يوتيوب channel أما إليس IT. هذا waxaan uga hadlaynaa Windows 11 oo soo baxday 24 daahfurkeeda lagu dhawaaqay 20 June ee la soo dhaafay 2021 marka Windows 11 ma waxay noqon doontaa mid Microsoft shirkadda leeyahay ku faa'iido mid ay ku khasaarto iyo waxyaabaha aad u baahan tahay inaad ka ogaato ayaan ku soo qaadanaynaa. Stay tuned. Windows daafurka waxa Windows 11 lagu dhawaaqay waa 24 June saad hadda shaashada uga aragtaan marka waxaana ay ku xigtaa hadda Windows 10 oo dadka badankooda kombiyuutarada ugu jira kuwa kale aan kuwa maaga isticmaalo maahan ama kuwa Linux ka isticmaalo marka laga reebo 2015 hadana 24 June baa lagu dhawaaqay marka sidaas daraadeed waxaan ka soo xignay sida ujeedaan isha waa microsoft.com sida dusha jeedaan waxaan ugu xigo marxaladii ay soo martay shirkadda Microsoft Windows and Operating System marka laga bilaabo 85 ilaa 2015 oo Windows 10 ay soo baxday. halkaas markaan ka gudubno shuruudaha ay u baahan tahay maxay tahay Windows 11 shuruudaha ay u baahan tahay waa laga maarmaan halkan uga jeedaan componentska waxa minimumka ah ee ugu yaraanta ah ee loo baahan yahay at least in uu yahay 86 or 64 processor ah ama ARM 64 ah ama 64 bit processor ah memory ama xusuusta waa 4 gig ugu yaraan storage kana waa 64 firmware kana waa UEFI system security gana waa secure boot enabled by default inuu ahaado ama uu lahaado trusted platform ama TBM loo soo gaabiyo version 2.0 graphic card inay sida ujeedaan dhammaan halkan ay ku qoran yihiin waxa kale oo muhiim ah in aad leedahay internet Microsoft account in aad leedahay ama Hotmail aan Outlook wax la midka ah marka arinta harqalada keenay doonto waxay tahay mid la leeyahay trusted platform module ama version 2.0 waan arki doonaa arintan waxay noqon doontaa saacadaleen hore Windows ka in ay ka faa'iideysto shirkadda Linux ka oo halkaas Windows laga yaaco ma dhici doonto waa ka gudbaynaa destroyed Linux ka ay leeyihiin sagaalkan ayaa ugu muhiimsan shaashada ka akhriso marka waan ka gudbaynaa computerka aniga aan haysto ma computer geli kara Windows saan ku ogaan karnaa waxaan ku ogaan karnaa qaabkan in aan raacno waxa tagaysaa start marka tagto setting baa tagaysaa setting marka tagto shaashadan ay ku soo booto waxa tagaysaa update and security waa ka tagaysaa Windows security ayaa tagaysaa Windows security marka ka tagto device security ayaa tagaysaa sida u jeedaan halkan computerkan waa uu leeyahay your security processor called the trusted platform is providing additional encryption for your device sida u jeedaan computerkayga standard hardware security not supported geedkayga ma support garayna haddana waxaa kaloo muhiim ah inaad ogaataan computerkan waa computer i7 ah oo kuwii ugu dambeeyay ah maxaa cadeen ah oo aad ku arki kartaa waxaad ku arki kartaa marka aad startiga aad tagto oo PC aad ku dhufato oo aad tagto PC aad ku dhufato right mouse click property aad tagto property marka aad tagto waxaad arki doontaa in uu computerka yahay i7 sida uga jeedaan memorygiisana uu yahay 16 gig Windows 10 ay ku jirto saas daraadeed sida halkan u jeedaan dadka badana i7 ma haystaan waa generationkii ugu dambeeyay marka ma filayo dhibaatada TBM ka ay keeni doonto waxay noqon doontaa mid dhibaato iyo carqalad weyn ku noqoto dadka badankiisa halkaasna ay ku dhamaato dad badan ay noqoto in kombiyuutarada ay haystaan ay iska tuuraan oo kuwa kale ay soo gataan si ay u helaan chipkan la leeyahay TBM ka ama trusted platform module ka si qof walba u helo kombiyuutarkan waa kombiyuutar absolutely fast ah oo aad u wanaagsan marka sida u jeedaan ma support garayna standard hardware security not supported waxaan isku dayi doonaa si kaleeta in aan u macmilayno oo aan Windows 11 ka laftigiina aan soo gashano hadii ilaahay yiraahdo aan idin soo bandhigo marka sidaas daraadeed Windows 11 ama shirkadda Microsoft ma lagu aamini karaa xogaha ku gaarka ah waa maya haddii noqon lahayd shakhsi ama haddii noqon lahayd bulsho ahaan labadaba lagu ma aamini karo waa shakhsi maal qabeen ah oo danihiisa gaarka ah durba ku fusan karo marka waxaan rajaynayaa in aad raaci doontaan qaacidadan open setting ka update security Windows security device security inaad tagto kadibna ayaad arki doonto trusted platform module ka oo